السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan jeclaystiinaa yara bayaamiyo arrinta Soomaalida dhexdeeda aadka ugu soo noqnoqotay ee ah reer Hebel maxay Carabu sheeganayaan iyagoo la garanayo inay yihiin Soomaali lafac cad leh. Waxa muhiim ah in la ogaado marka koowaad in Soomaalidu ama Soomaalinimadu tahay qoomiyad. yaa qoomiyad ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo ethnic group lagu sheegi karaa haddaba. dadku haddii leeyihiin dhaqan, curfi, luqad, hab nololeed, taariikh iyo muuqaal isku mid ah, dadkaas waxaa la yiraahdaa waa qoomiyad Hebel. sida in la yiraahdo qoomiyadda Soomaalida ama kuwa Oromada iyo wixii la mid ah. ethnicity-ga ama qoomiyadnimaduna sideedaba waa isbedbedeshaa oo maaha wax meel kale ah loogu tago. waxay isbedeshaa marka bulsho ay dhaqanno cusub qaataan, sida inay diin cusub u wareegaan ama dadyo cusub la falgalaan. waxaa kaloo isbedeshaa marka bulsho u guurto deegaan cusub oo dunida ka mid ah. isbeddelkan waxaa cilmiga daraaseeya bulshooyinka lagu yiraahdaa ethnogenesis. waxaa kaloo muhiim ah iyadana in la garto inay jirto wax la yiraahdo abtirsiin oo ah waxa qabaa'ilkuba ku dhisan yahay kana samaysmo oo aynu wada naqaan. su-aashu waxaa weeyaan haddaba qof Soomaali ahi ma ka soo jeedi karaa Carab isaga oo weli Soomaali ah oo aan qowmiyaddii ka tegin? jawaabtu waa haa, sababtuna waa abtirsiintu waa maguurto, laakiin qowmiyadnimadu waa mid isbedbedesha kuna xidhan deegaanka iyo dadka aad la tarantid. tusaale ahaan, Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam dhammaantiin waa aynu wada yaqiinsanahay inuu ahaa Carab Qurashi ah. waxaa kaloo aynu wada ognahay in Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam uu ku abtirsado Nabi Ibraahim iyo Nabi Ismaaciil calayhim assalaam. labaduba ma aysan ahayn Carab iyo Banu Israa'iil toona. waxa Nabi Ibraahim calayhi salaam ka soo jeeday dad degi jiray magaalada Ur oo ku taalay dhulkii Mesopotamia, iminkana Ciraaq loo aqoon og yahay. dadkaasu ma aysan ahayn Carab. Nabi Ismaaciil iyo Haajiro calayhim assalaam markii ay deegaanka Maka cidlada ku ahaayeen ee Ilaahay ku arsaaqay ceelka Samsamka, waxaa la degay oo ay isku deegaan noqdeen Carabtii reer Jurhum ee qaxdaaniyiinta ahayd. Nabi Ismaaciilna isagoo aan iyaga ka tirsanayn ayuu la deegaamoobay, ka guursaday, kuna dhex tarmay. ubadkiisii iyo tafiirtiisina waxa ay qaateen dhaqankii iyo luuqadii iyo habnololeedkii Carabtii ay ku dhex jireen, waana ay caraboobeen. waa sababta Qurayshta loo garan og yahay alcarab almustacriba ama Carabtii la carabeeyey. tan waxay noo sheegaysaa markaa in qowmiyadnimada ama ethnic identity-gu isbedelo deegaanna ku xidhan yahay. oo Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo Qurayshba isuma ay aqoon loomana aqoon inay reer Ur yihiin oo ah meesha ay ka yimaadeen asal ahaan. si waxaaba ay noqdeen Carab kuwa ugu laanta dheer uguna sharafta badan. sidaas si la mid ah waxaa jirtana inay hadda nool yihiin dadyow Carab ku aroora oo daafaha dunida ku nool, laakiin iminka ah Chinese ama Indonesian ama Eurobiyaan ama Soomaaliba. aynu markaa usoo noqona su-aashii ahayd qofku Soomaali ma noqon karaa isagoo Carab abkiisu ku arooro? jawaabtuna waa haa, sida aynu soo sheegnay. marka waa macquul inay jiri karaan qabaa'il Soomaali qowmiyad ahaan ah, laakiin asal ahaan iyo ab ahaanba ku aroora Carab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.